Kulanto fayla saaxiibayaal ka dhowaada barnaamijka falanqaynta ciyaarta ee kulanka xiisaha leh UEFA Champions League andhaxay kooxooyinka Manchester City iyo naadiga Benfica ee Chelsea kaasoo magaalada Porto ee dalka Portugal oo ka sacda markiyeeda 4 saac la wada balansiiyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayes toos barnaamijka siinku kooyahayo waliba Martina Ninka Cabdinaasir Musharraf iyo Eedan Geesi isla markaasna walku weydiin doon dhankiyoonay kulanka adag ee la wada sugadahay indho caalamkana markaas ka wada haya waana la kahardamahay koobkan weyn ee Europe koox markin koreyti iyada finaalkoyti waana baahantii in ka guuleysata iyona koox koobka ka guuleysashadiis 2012 ka dambeeyay yayo in haanayo is wada araga doonaan Musharraf ka bilaaway Cabdinaasir sidee lagu filadahay kulanka andhaxay kooxooyinka Chelsea iyo naadiga Manchester City taariikh ahaan sidee didiilada lamada kooxood ee ku dhaxayd ida ma santa bishar ad iyo waliba dadka barnaamijka dhageysadahaya salaame gaar ahaan bahda sportiska runtii kulankan waliba kulan eedan weyn oo dunida dhan hendo la wada haay bahda sportiska iyo waliba taageerayaalka lamada dhina runtii heese gaar ayaa leeyahay markii la feeri lamada dhina Manchester City iyo waliba Chelsea tan koreet may boo horta la ku bilaabo Tottenham iyo waliba Liverpool markale iyo sanadkan kooxo Ingiriiska muujiyeen aboodiyo leeyin oo inta lama koox Ingiriis ee finalka koobka dhagweynaha Lancaster ee Championka markaas final show wada kooyan markii la ka qiimeeyona heerka horyaalka ku dheelayaan English Premier League-na wal ogsanyi heerarka Chelsea iyo waliba Manchester City oo Championka Ingiriiska meelaha ka dhamaysadaan runtii Chelsea tartanka Ingiriiska markii la feeri waliba geel galay intii Championka Bahambata oo kaalinta afraad ee si cariiri markaas hardan gal in kasto saddexaad ka dhamaysatay salamada Manchester City awoodiye way baahayeen Premier League sanadkan heerka ka gaadi wal ogsanay walibana saameynta eedkan weyn laha lamada dhinaba waliba dheelayaan ciyaartoy oo da'yar oo English Premier League ku dheelan salamadana tartama hayaan intaas muujiyano oo xululka kiisho ku qeyb galan Euro markaas 2020 oo 2021 kan la gobadahaya marka Manchester City hadii aan ka hormara sanadooyinka dambe taariikh cajiib ayaa sameeyay markii shaqada la dhiibay Pep Guardiola taariikhdii sameeyay wali kuma dahanti markii in koreyti group stages ka Championka ku gudubta salamada sanad lamaad wali baatana sameeyay taariikh kale oo inta semi finalka kooyta sanad saddexaad oo xiriir ay haatana finalka kooyta marka taariikhda xiriirka oo Manchester City waliba muujiyay inta tartan badan iyo waliba rikoor badan soo bii korta Chelsea markii la feeri lamada kun iyo tumay lamada 9 sano ku baadaya inta Championka markaas final shaqooyinka inkastoo marar badan ku qeyb galay Chelsea waliba saayada kore oo aan sare kore xamaasada inta sanado badan ku baada final kooyta salamadan English Premier League waayta sanadkuna koob banqaadna marka waliba la sare kore tababaraha waqtiga cusub Thomas Tuchel intiisa hangal teegaha inta Championka ka guuleysada ciyaaryahan badan oo runtii awood leh roogan oo daayar oo hata baan oo isku mid ay laacibka reer Mareykan Christian Pulisic oo runtii gool dhali iyo waliba weeraryahan oo awood sare leh salamada da'yar iyo hoggaankan hay kooxda Chelsea wali kuma xidiga taanbahay xulka qaranka England markaas magaalada Lancaster Mason Mount oo sina runtii boss xulkasi uu ku hela walkasta ka soo kooxda Chelsea awoodisna tusi bahda sportiska salamada da'yar badan iyo jaran qadka dhexe kooxda Chelsea doona feerana waliba rogan Jorginho iyo waliba Kante salamada Kai Havertz roga waliba si guulo kooxda Chelsea kaalinta koowaad la sare kora goolhayga oo Eduardo Mendy oo sina runtii goolhaye eedan saray oo xirfadiis runtii ka bandhigay kulamo adagna kaalin weyn markaas ku jari marka Chelsea waliba sare kora awoodi finalka Championka ka koyti maka qaado ayas Manchester City hadii aan nagada markii in koreeyo finalka Championka koyta inkastoo taariikhdaasi iyo suubide waliba sare kore soo bii korta taariikh lamaad oo inta markii in koreeyo final koyta hor ku qaada waliba saayada kore awoodi ciyaaryahanada kooxda Manchester City oo horey langere intii aad kooxdan ka ciyaartay Fayla Premier League Kevin De Bruyne si rogan salamada uu ka xamaasada kale oo xasuusto mudan waliba intii laacibka reer Argentina Sergio Aguero
kulanshiyanka dambe lakama salaamayahay championka nagada doona sanado hore 2011 iyo 2012 waliba ogsana Sergio Aguero intuu ari kulankiyanka dambe City Copa la qaada doona waliba championka ya runtii eedahan hadal qaaday marka Aguero oo ka waliba markaasi sumudanya intii Copa lakama salaamay kulankana kulan eedan adagu saadalantiisna runtii lamada ku caawiyay markii lan feeri eedan adagta lamada dhinana ti awood badan ya nasiibka saaciido doon aadan geesiyaan inagii aanay aadam haye sadeew faalada ku dareemahay kulankaas falanqeeyaalka dadka markaas wargeysadii ku qorayaan ma natiijahan lagu filado kor oo City iyo Chelsea ida ma santa City iyo Chelsea kooxo Ingiriiska ku dhisan waa kooxo hatana hardan ka badan dhanka English Premier League markii lanaga doona waa kooxda Chelsea oo hata sadriq ee championka hata final roogde waana championka higaya hata saqal qilaan ka batay kulanka uu ka markii dhanka iyo warbaahinta sadiyo walan ku qorahay tan fiiri macallin Pep Guardiola oo leeyahay kooxda Man Blue wayba usa andowya in usa ka hogaamiyo kooxda in ya ka guuleysata Champions League taariikhda markii Koreyti waa markii Koreyti usa final shan waa markii Koreyti usa hata uu ka fadahay in usa taariikhda dhika xalay way ka beeganaaytay markii ka dambeeyay usa Champions League la qaaday kooxda Barcelona Pep Guardiola wayba usa caanka iyo sidii loo wada huba in usa xiliyadan oo kala hub usa final kooy usa ka guuleysada marka lamada kooxood oo kooxda da'yar ee wada rogan sida Mason Mount iyo Phil Foden oo kala oo halistiyo isku badanta hatana maaragna hardan noocaas ku dhaxay waana lama xidig ee Ingiriiska ku wada tirsan marka xidigoogaas iyo xidiga kale oo fara badan oo saameyn ka waldada kor ciyaarta oo ka Champions League dartiya wayba dhinima ambadi kora dadka guuleysada korta maadaama hamiin hora ada aragaasi lalanki Europe League dhanka iyo Manchester United la xiriiriyay balse wali ku dhiilis la arag marka tan waa kubad way wada ogsanaa taariikhdan Koreyti championka ku dhiiday oo yaani kooxda Tottenham Hotspur iyo final kan ka baasay Ajax iyo wali ku dhii Ajax oo hogaanka hayti kulankaasi oo taariikh muujisay ku dhigay Pochettino oo xilligaas kooxda Tottenham leeliyay wayba usa abranka ka adkaay in bulooni leeyahay marka uu kana bulooni leynagade eduusan heliyo may og laakiin kooxda Man City yaa dhawtay in taariikhdii hasa saxday isla markaasina iyo ka guuleysatay Champions League macallimo Pep Guardiola oo taariikh noocaas ay u soo bi final badan oo saadiri dartiye Cabdinaasir markii la fiiri heerarka saadaalinta inkastoo yeedata marxalad adag langu aamiyo koran oo ka Cabdinaasir Musharraf dhanaga janjeerayd saadaalinta dhanakiika sababtana mayad dad ku taageerayd runtii lamada koox Porto wali dagaalama hayaan intii magaalada Manchester ama magaalada London Tottenham ka dabaaldega waliba aan ka xamaasad badana magaalada Manchester oo runtii dareemo kortantii Bruno Fernandes ay ilantio markaasi ka gobati oo reetanka nagadan iyo koob aan qabna waliba hubaal aha intii kooxda Manchester qayb kumid horeen sheegay inta City taageero doonaan oo ebid markii Koreyti Leicester kor ciyaarto United ku tirsan City taageeraan oo horeen aran koobkii lamad oo Euro hadii uu sheeno waa in City ya waliba aan rajaana intii magaalada Manchester una kala dabaaldegno champion sheenan dad badan oo United kumid ana marnaba maka qosolaayaan City oo koob sheentay dhabar jaba kanagadaasa mana dabaaldegi doonaan waliba muhiim waliba markaasi ku dooradaan intii magaalada London Chelsea iyo Jeta marka shakhsiyaday saadaalinta hore min iska feelayna laakiin championka dambe oo kooxda Bayern Munich qaadaasi ya saadaali la ku bilaabo semi-finalka afarta kooxood kooyas ilaa finalka ilaa kooxda qaadaasi ya saadaali in Roma wataas markale uu ka waliba ana filaday inta markale taariikhda 2012 oo waqtigaas Fernando Torres ay dhikan da'yarta hatu sukumid Mount Pulisic uu ka nasiibka in saayada doonaan Tavio dhinac waayahay adam haye idan ma siin saaxiibkay oo
shayaatiinul xumar kooxda ay raayeen taageero rajadiis iyo hidadiiladiisa ku hadlay macallimo Pep Guardiola iyo weliba taariikhda sagootinta Sergio Kun Aguero oo ku nagada doontay in Champions League koobka farta lagu saar Sergio Kun Aguero oo kabtan wadada Sky Blue iyo koobkaasi Itihad ku dejiyay rajeeye taasi wayba sabab awoodi iyo hidadiilada English Premier League karoogni yana shal saaras oo Chelsea hatana wayna shal saarasay yani awoodi una ka koynay magmalayo Blues iyo ku adigin kooxda reer France ee Paris Saint-Germain marka taasi dartii wayba uu ku guulan dhawta in Kevin De Bruyne iyo Sergio Kun Aguero iyo Phil Foden oo Ingiriiska daayirkii anka Dembele ka guuleysay Champions League u sanagada way idan maasin Cabdinaasir Musharraf iyo aadan geesiyay hayaan oo kuwada falanqeeyeen arrinta la xiriirta kulanka finaalka Champions League City iyo Blue